qisadeena qaybtii koowaad waxay ku dhamaatay ayadoo familada ka mid ah oo wadanka Austria kuwa albaabada u garaacaysa ay ka mid yihiin oo ay weydiisay ay ku tiri mataqaanaa Irina Fox markaasay leedahay ha waa naqaanaa aad u farxaysaa laakiin waxay leedahay waa ka xumahay 20 sano ayaa iigu dambeysay qofkan waxayna ka shaqaynaysay foorno ku taala meeshan gurigii ay ku nooleedna waa gurigaas intaas in ka badan oo information ah kama helayso Austria way soo baxaysaa daalkeedii iyo socodkeedii iyo su'aashii ma aragteen ayaa meesha uga sii bilaabanayso naagtii barnaamijka waday waxay garaacaysaa albaab walba foorno ah waxay weydiinaysaa in ay yaqaanaan qofkan markaasaa la leeyahay ma aqaano siday albaab walba u garaacayso markay daasho waxay leedahay waa ka xumahay meeshaan waxba kama helayo oo waan ku daalisaan u raadinayay waana iskaga noqonayaa waxaan ku noqonayaa maya waa idin soo sheeka dhaafay waxay u tagaysaa markii la yiraahdo halkaas ay ka shaqeyn jirtay foorno say u tagayso ayaa waxa uu qof leeyahay waan aqaanaa 20 sano ka hor ayay meeshan ka shaqeynaysay waxaana laga yaabaa in ay dhimatay qoftaas way soo baxaysaa ayadoo aad iyo aad u naxsan markay soo baxdo waxay imaanaysaa qabuuraha ninka mas'uulka ka ah waxay weydiinaysaa in uu u baaro qofkan magacan la yiraahdo waxay u dhiibtay dhalashadiisa marka waa loo soo baaray waxa loo keenay 20 magac oo ah Irina Fox isla ah waa anagoo kale aniga hadda waxa la yiraahdaa Amina Maxamuud Maxamed boqol Amina Maxamuud Maxamed aa jirto hadii adiga Saadiye Cusmaan lagu dhaho boqol Saadiye Cusmaan aa jirto marka saas camal la ma fahanti waa loo baarayaa way weynaysaa horta meesha farxad ayay ka qaadaysaa ani xitaa dabcan wallahi waa la farxay yani waa naxay inay dhimataa loo maleynaa markii la dhahay duqda see u ooynayso wallahi naftaa ka dhacdo da arkileed waa la ooyn leed qofkii raba u soo tilmaamaa meesha uu ka fiirsan karo af jarmalka yaqaana barnaamijkaas ha ii soo sheego commentiga ha iigu soo qoro idinka in ku arkay oohintii ooynayso miskiinta kadib way farxaysaa dabcan anigana waa la farxay in aysan dhiman kadib waxaa dhacday markay weyso waxay leedahay waa ka xumahay fikradaha ku soo dhalanaysa marka fikrad oo ah in ay ka raadiso magaaladii ay ku dhasheen qabuuraheeda inay ka raadiso way soo laabanaysaa qabuurihii magaaladii ay ku dhalatay wadanka Chechnya Brun ayay imaanaysaa waxay leedahay laakiin tookadan waxay ka raadinaysaa qabriga hooyadeed waxay dhalatay 1913 ay dhalatay waxayna dhimatay 1961 ay dhimatay oo markay Soomaaliya xuriyada qaadanaysay ka waran subxaan allah maya 1990 ay dhimatay raali noqda 1990 ay dhimatay maamada qabuurihii imaanaysa waxay leedahay qofta magacaasi la yiraahdo ayaan rabaa in iiga baartay inay ku dhib oo yani ay ku aasan tahay meeshan kadib waxa dhacayso waxa la leeyahay magaceeda sheeg iyo dhalashadii ay sheegaysaa waxa la leeyahay ha qoftan 1990 ayay dhimatay halkaana lamana aasin waa la gubay dadka qaarna way isgubaan Yurub qaarna way isgubaan qaarna waa la duugaa marka ayada waa la gubay dambasteedan waa la firdhiyay ma fahanti hindigan waxaan ka arki jiray dambasta ayadoo bad lagu firdhiyo ama dheri lagu shubto guri la dhigto ay meesha ka barakeystaan wadiyaadu billaah waxa la leeyahay qoftan waa la gubay waana dambasteedina waa la daadiyay waxay leedahay ma ii fiirin kartaa qof qaraabo ah qofkii keenay meedkeeda meesha oo intay ka bilaabanaysaa farxadda haya la leeyahay waxa keentay Irina keentay Irina waa gabadheeda
ayaa keentay meesha. waxaa la siinayaa adreeskeeda. kadib markay qisada intaas marayso waxay samaynaysaa, waxay wacaysaa gabadhii walaalaheed loo raadinayay oo dadka soo dirsatay Liza Lota. waxaana la keenayaa magaaladii ay ku dhalatay, bal gurigii ay ku dhalatay ayaa la keenayaa. kadib markii la keeno, markii soo istaagtay qisada waxa iga yaabiyay waxay tahay oo hinaan nafta ka qaadayso. mar allaali markii gaariga laga soo dejiyo gurigii ku dhalatay la horkeeno, waxay leedahay gurigaas hadda qofna kuma noolo, waxaa loo dhaafay saro waaye oo waaweyn, waxaa loo dhaafay yani dalxiis ahaana loo dhaafay, qofna ma degno, waa un maaragtay waa la dayactiray bes khalaas way xiran tahay. way iska ooynaysaa, waa lasoo wadaa hoteela la geynaa, waxaana loo daarayaa cajaladii iyo raadintii iyo wixii loo soo helay walaalaheeda. kadib waxay u tagaysaa adreeskii la siiyey. markay u tagto waxay leedahay waxaan ka socdaa wadanka Jarmalka, waxaana raadinayaa qof la yiraahdo magacaas ee adiga ma tahay. markaasay leedahay haa waanahay, maxaa iga rabtaa? waxay leedahay qof baa adiga ku raadinayo, qofkaas muxuu yahay? qof Jarmalka ku noolaa ku raadinayo oo adiga kula dhashay. gabar noocaas iyo noocaas ma taqaana? way iska oynaysaa ayadana. haayay leedahay waa walaashay, kontaktigeeda waxaan weynay waqti hore, waan kala dhunnay, waa ka xumahay walaashay, waan u xiisay, ma nooshahay? haa. waxay leedahay gabadhii kale laba gabdhoodii ahaayeen, saddexay ahaayeen, mid ayada wax raadinayso Jarmalkay joogtaa, labada la raadinayna waxaa la kala dhahaa Irena iyo magacyadan karaayo Gertrude. magaca haddaan qalad ugu dhawaaqana ma ogi, laakiin waa saasay u qoran tahay. aaway leedahay Gertrude, waxay leedahay way nooshahay, waa farxad kale soo ma. labadii walaal la raadinayay way nool yihiin. cajaladu way fiirsanaysaa, way iska oynaysaa walaalaheed markay aragtay, li'anno 4 sano ugu dambeysay markay jirtay, yani ma aqoonsan karto, xataa wejiyadooda ma xasuusan karto si u yaaleen. subxaan allah. labadii gabdhood tan weyn waxay jirtaa 82 sano, tan kale 78 sano. gabadhan dadka raadinaysa waa gabadhii ugu yareed, waxay jirtaa 75 sano. 70 sano ayay raadinaysay walaalaheeda, ay kala maqnaayeen. hal mar oo ka mid basay is arkeen 63 hal mar is arkeen. inta ka sokaysay ismay arkin, ismana maqleen. ugu dambeyn labadii walaal cajaladii usoo duubayaan, maya cajaladii video laga duuba, barnaamijka waa la duubayaa, laakiin waxay leeyihin walaasheen waan jecelnahay, wax ma ka xasuusatiin? haa. waxay leedahay aniga walaashay aadan u ciyaari jirnay, wax baan qasi jirnay, waan dhib badnaan jirnay. hooyadiina walaashiin waxba kama xasuusatee, maxaa uga sheegi kartiin? aan leeyahay meeshii hooyada uga sheekeynayaan ay leeyihiin hooyadeena way dhimatay oo hal habeen farxad kuma ay ladin ilaa ay ka dhimanaysay, wayna ku dhimatay murugadeedii iyo ciilkeeda. waxaana mahad iskale ilaahay oo na kulansiiyey oo walaasheena dib noogu soo celiyey. ugu dambeyn waxaa loo keenayaa Liza Lota walaalaheeda, labadii walaalood. labada walaal keliya ma aha, waxay dhaleen, waxay sii dhaleen, yacni qabiil dhan loo soo istaajinaa meel. maskiintan Jarmalka ka imaatayna keligeeda socoto. kolley hadday famil leedahay waxaan u malaynaa in lagu soo xusi lahaa meesha. Jarmal midda keliya aan ku nacay waxay tahay kelinimada. walaalayaal waxaa meesha ku kulmayo 3 walaalood ee intaasoo 70 sano isweysanayay, ee xaaladda xun lagu kala geeyey, aabbahood dhinac loo firdhiyey oo hooyadoodna dhinac loo firdhiyey, oo ayaydeed horteeda lagu jiitay, gabadhii yareeda maskiinta ahayd horteeda intaasoo gabdhood lagu kufsaday oo intaasoo qof lagu bireeyey. waxay kusoo gabagabowday qisadeeda farxad iyo inay familkeeda dib ula midowdo. alxamdulilah. qof walba oo insaan ah farxad waa istaahilaa. ilaahay ummadda ayaa isagaa kula xisaabtamay dembigay galeen, laakiin ibni aadamnimada gaali muslim buu u baahan yahay. run ahaantii waa qiso aad iyo aad u murugo badan.
kuwo kaloo kasii murugo badanna way jiraan oo noocyadaas iyo noocyo kasii foolxun ah. waddanka maanta sidaan u dhisan sidaan u qurux badan aan qaxootiga u nahay, gabdhahoodii, ilmahoodii iyo aabayaashoodii waxay soo mareen marxaladaas iyo xaaladaas. haddii aad jeceshihiin in aad sii ogaataan ama intaan inka badan aan idin soo daayo, waad iisoo sheegi kartiin insha allah. waxaan idinka codsanayaa barnaamijka videogayga inaad like ii sartaan oodna igu soo biirtaan, share garaysaan oo insha allah aad i dhiirigelisaan biidni illaahi albaari. anna waxaan idinka ballan qaadaya qisooyinka taariikhiga ah oo wax laga dheefi karo, dal ahaanna wax looga dheefi karo, shaqsi ahaanna aad wax ka dheefi kartid in aan idin soo daayo. sababtoo ah markii lagu yiraahdo xanuunkan qof heblow ku dhacay waana ka bogsooday, meesha waxaad ka arkaysaa yacni hami iyo dhiirigelina yacni aad ka helaysaa, korna waad usoo kacaysaa. intaan kusoo gabagabeynayna qisadeeni videoga xiga intaan ku kulmayno waxaa idinkaga tagayaa insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.